Halkan waa Qowl Media TV. Odayaasha laba beelood oo walaalo ah oo ku dagaalamay galbeedka magaalada Kismaayo ayaa shalay ogolaaday xabad joojin rasmi ah oo la dhex dhigo labadaasi beelood kadib markii kulan heshiisiin ah lagu qabtay magaaladaasi oo xarun u ah maamulka Jubbaland. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay qaar ka mid ah waxgaradka beelaha gobolkaasi, kuwaasi oo doonaya in heshiis laga gaaro colaadda soo noqnoqotay ee dhex marta dadka reer guuraaga ah. Kulankan ayaa lagu go'aamiyay in xiisadda la qaboojiyo, waxaana lagu ballamay in heshiis xabad joojin ah ay wada saxiixaan waxgaradka dhinacyadii dirirtu dhex martay si dhiig dambe uusan u daadan. Sidaasi waxaa wadajir u guddoonsaday suldaanada hoggaanka u ah labada beelood. Beelahan ayaa dhowaan ku dagaalamay deegaano dhaca galbeedka magaalada Kismaayo, dagaaladaasi oo salka ku haya isqabqabsi la xiriira tuulooyin iyo dhul daaqsimeed ayaa dhowr mar horay xal looga gaaray, balse dib ayay u soo laba kacleeyeen.